إله ما نجي والله إله ما نجي إله ما كان نجي يقلحت نفتينا ده تخاني يقلحت يا ليش دول يا ليش دول والله لقطة ما كانت بحجوك سنة وجب جر أما جوي awoodo maxalli ah local ah oo Soomaalidu ay ka mid yihiin dadka Soomaalida ka mid yihiin iyo Ethiopia inta baa adeegsanaya marka aniga waxaa cabsi badan iga haysaa inaan noqono Suudaantii labaad oo mar dagaalo sokeeyo oo gacanta aan ku hayno oo gacan kale nalagu hayo waayo Sheekh Cabdiraxmaan khayr Allah ku siiyo haddii aynu eegno dekada Tajora ee dowladda Djibouti ay soo bandhigtay xero military saldhig military siinmayna ay yiraahdeen laakiin hadday dekeday ku ganacsadaan ka shaqaystaan ay rabaan una dhow dekadaas ayaa diyaar u ah Ethiopia arrintaas inaysan danaynaynin ayaa la qiyaasayaa inkastoo aysan weli warcad ka soo saarinin dowladda Ismaaciil Cumar Geele dad badan waxay aaminsan yihiin door shariif inay halkan ka ciyaartay oo xasaladii ay dejisay ra'yiga ma qabtaa Ethiopia haddii dekada doonayso Tajora ay haysataa waxay haysataa dekada Berbera ay haysataa Djibouti qiimaheeda kale wax kala soo degtaa mushkilad badan ma hayso soo dhow waxaan u kala saaraynaa Sheekh Cabdilxafiid oo baahida Ethiopia waxaan kala saaraynaa amba shaqada maaragtay dekadaha Ethiopia rabto saddex baan u kala saaraynaa midda koowaad dekado ay ka adeegato loogana adeego dekadaha Ethiopia iminka way haysataa wax ka badan boqolkiiba 85 adeega Ethiopia waxay ka heshaa Djibouti dekada Djibouti amba dekadaha Djibouti ee waaweyn oo dhan iyadoo adeegta waxay kale ka heshaa Berbera waxay kale ka heshaa Kenya intii ayna Suudaan burburina bay ka helaysay marka adeegyada normalka loo yaqaano ee dabiiciga ah ee Ethiopia laanka way haysataa baahideedana waa laga wada jawaabaa inta ugu badan mid labaad bay Ethiopia rabtaa waxay rabtaa inay hesho dekad iyadoo ay leedahay oo inta badan qaar ay ku isticmaalayaan dekad baa mushtari inay hesho oo iyadoo ay yeelato laba sibay ku yeelanaysaa qaanuunka dawliga ah inay gadato laga gado muddo 90 sano 100 sano intii doonay hal dhac amba inay kiraysato oo ay kira ku hesho labada inay mid ku hesho laakiin ay iyadu leedahay boqolkiiba boqol adeega meesha ka dhacaya lala wadaagin iyo dariiqa iyo jidka ay soo qaadayso midda saddexaad ee rabto waxa weeyaan inay hesho dekad ay dhigato saldhig ciidan Ethiopia way samaysay iyadoo bad lahayn waxaan la sameeyay wadanka Faransiiska waana dekad weyn oo maaragtay waxa ciidan weyn oo tababar nooc kasta qaatay maraakiib fara badan iyo duuriye fara badan oo soo qateen marka waa inay helaan meel ay maaragtay ciidanka dejiyaan arrinta ay la galeen Somaliland waa arrinta labaad saddexaad weey oo ah inay helaan meel ay ku maaragtay hub iyo raashin iyo wax walba ay ku iska leeyihiin oo istiraatiiji ah 20 kilomitir baa lagu qadaray arrintaasi waa midda labaad oo dowladda Djibouti soo bandhigtay ee magaalada Tajora waa midda aan sheegaynay ah inay iyadu kiraysato amba laga iibiyo ayna yeelato boqolkiiba boqol awood shaqada ay yeelato arrintaasi waxay u baahan tahay dikadan Tajora iyo dikadan Zeylac marka la isbarbar dhigo teba istiraatiiji ah marka la isbarbar dhigo dikada Zeylac baa ka istiraatiijisan Tajora لأن التجارة waxay ku jirtaa loo soo weecanaya hud bay ku jirtaa yani marka baabnada lagu soo dhaco waa in la weecdo oo khaliij la golf la khaliij Tajora ayaa la tagaya dhinaca uu ku yaalo Zeylacna ku taalaba badi geer saad u tahay marka ku soo galo ama doonidu si Djibouti oo kala bacdan oo kale iyo taala jidkii u taala marka istiraatiijiyan ma rabaan Tajora ma rabaan laakiin Cabdilxafiid waa arrin muhiim ah jirta muhiimkii waxa weeye dowladda Minilik boqorkii loo jiray wuxuu aaminsanaa dikada Djibouti inuu isagu leeyahay waxaana uu aaminsanaa wadanka Djibouti raada inuu isagu leeyahay marka dowladda Djibouti haday tahay dowladda imika jirta iyo tujiri doontaba waxa ka dhaadhacsan fikrad ah jiritaanka dowladda Soomaaliya waxay muhiim u tahay difaaca dowladda Djibouti haddii dowlad weyn oo Soomaaliya ka dhalan weyday soo bixi weyday awood weydo dowladda Djibouti Ethiopia markay doontay qabsan kartaa
wax ka hor joogana ma jira iminka waxa laga yaabaa inay gaaladan iyo ciidamadan reer yurubta degan iyo maraykankan inay ka ixtiraamayso laakiin hadday ka hesho maaragtay gacan ay ka ogaato in lala hadlayn waa iska qabsanaysaa marka arrintaasi waa arrin aan ognahay oo muhiim ah markaasi saa maadaama la aaminsanaa ninka la oran jiray malla zinaawi nin wuxuu ahaa aad u maskax badan wuxuu sameeyey istaraatiijiyad buu jabuuti la sameeyey anuu aan u bixiyey berigii hore istiicaab suma ibtilaac waxay ka dhigan tahay waddanka soo dhowey kadibna liq muxuu markaa sameeyey wuxuu ka dhaadhiciyey shicibka iyo dowladda jabuuti inay u baahan yihiin biyo raqiisa oo aad u badan iyo koronto raqiis ah oo aad u hooseysa afarta arrimood ugu istaraatiijisan nolosha reer jabuuti etoobiya kasoo qaataan milis baan u seexay magaalada la dhahdo xuduud ku taallo hadhagaala la dhahdo biyo badan baa yaalla oo hoosta ah biyihii baa lasoo saaray jabuuti baa la siiyey waa laga gadaa korontadiina jabuuti waa laga gadaa qayb ka mid ah oo muhiim ah raashinka la cunana boqolkiiba 90 wuxuu ka yimaadaa etoobiya arrin muhiim ah jirto soomaalida ku waraysato oo la dhahda qaad oo ah maaragtay sakhradeenna ah ilaahay naga badbaadiya taana etoobiya ka imataa marka etoobiya markay halkaa socoto wuxuu ogaaday meles waxa dhahdo istaraatiijiyadii dhaqaaluhu waxaa dhacday in jabuuti gacanta lagu hayo waxaa markaa inaan la qaadaa tallaabo kale wuxuu la yimid dowladda jabuuti in dikadda tajoora la dhiso dikadda tajoora ma dhisnaan jirin dib baa loo dhisay leanna tajoora waxaa jirtay dikad muhiim ah waqtigii dowladdii maaragtay cusmaaniyada iyadii seelcaba muhiim bay ahaa jireen markaa dikaddii in dib loo dhiso waa la dhisay 9 milyan oo dollar baa la geliyey way dhisatay dowladda etoobiya gaar ahaan tikreega waxaa dhex maray heshiis la dhahdo in wixii uu kasoo dego tajoora maqalla tago maqalla waa caasimadda tikreega weeyaan halka ay ka tagayaan wixii jabuuti ka baxay disababa oo disababa laga qaybinayo inay maqalla noqoto meel iyaduna labaad oo dhaqaalaha etoobiya laga qaybiyo istaraatiijiyadii ma la saxay waxaana kaloo hoos jiray istaraatiijiyad culus oo ah haddii etoobiya burburto la kala baxo oo tigreegu ay go'aan inay haystaan dikada ay kala soo degaan oo dhulkooda ku xidhan iyo dhulka canfarta ku xidhan iyadana muhiim bay arrintaasi marka arrintiiba iminka ninka wasiirka arrimaha dibadda markuu hadlayay wuxuu xasuusinayay dowladda etoobiya waxaa jiray heshiiskaabaa jiray laakiin etoobiya maxaan ku idhaha cabdixafiido waxay isticmaalaysa siyaasadda istiicaab soo dhowey kadibna liq madaxweynihii hore wasaarihii hore etoobiya ayla maryam ee ka dambeeyey mallas kana horreeyey axmed abi ayaa jabuuti booqasho ku yimid wuxuu khudbad ka akhriyey meesha la dhahdo aqalka baarlamaanka wuxuuna ku yidhi kelmad aad u qurux badan kelmadda uu yidhi waxay ahayd ma qurux badnaa yani etoobiya u fiican yani waan midownay dhaqaale ahaan waxaa inoo haray inaan midowno siyaasad ahaan kelmaddaasi dadka reer etoobiya reer jabuuti ma dareemina sacabka u tumaan mar dambe oo ka hadlay bay dareemeen dhawro masaa buu jeeday maxay ka tahay waan midownay dhaqaale ahaan ee waxaa inoo haray inaan midowno maxaan ku dhahdaa siyaasad ahaan waxaa kale oo jira lacagta etoobiya birta la dhacdo sida faranka jabuuti uunbuu uga socdaa waddanka jabuuti gudaheega waxbaa lagu kala gataa yani dadku wuxuu noqday wax la aqbalay inaa wax lagu kala gato arrintaasi waxay dadka ka dhaadhicinaysaa wax la dhahdo in diyaar loo noqdo isbedel weyn oo soo socda laakiin dadkeenu ma dareemayaan sidaas oo kale hargeysa oo kale waxaan ka dareemi jiray in lacagta birtu ay la mid tahay lacagta dollarka oo wax lagu kala gato si caadi lagu kala gato marka etoobiyaanku waxay wadaan wax yar oo maaragtay fidis aanan dareenkeena ku jirin oo ah inaan aqbalno inaan etoobiya ka mid nahay dadka qaarkood waxay ku dhahayaanba etoobiya waa awood aan laga maarmayn soomaaliduna waa awood aan laga maarmayn etoobiya haddii aan laga maarmayn soomaalida lagama maarmi karo maxaa yeelay iyaka ilaahay wuxuu siiyey dhul barwaaqo ah oo fidsan annagana wuxuuna siiyey dhul badaysan oo ah waxaan dhahdaa anigu etoobiya horumarkeegu wuxuu ku xidhan yahay baddeena annagana wuxuu ku xidhan yahay horumarkeenu waxa baddeena kasoo degay inaan iyaka u geyno tabaadulkaas buu ka dhalanayaa inaan degno oon horumar wada samayno is aqbalnana laakiin inaan isgumaysano maaha yanaan wax kala qaadano xeebihiinoo dhan waa isticmaali karaan iyakoo ogol inaan anaku dhulka leenahay annaguna ka talino iyagana dhulkooga waan isticmaali karnaa annagoo ogol inay iyaku dhulka leeyihiin oo dhulkooga ay ka taliyaan sidaa yurub oo kale yurub baa joogtaa yurub baatay holland baad baabuurka raacaysaa waxaad tagaysaa sweden dhulka dhex socotid dowlado kala duwan baa maraysaa laakiin dowlad ma boobto dowladdu xataa waxaa la qaybtamay biyaha webiyada la qaybtamay oo si cilmi loo qaybtamay webi baa la wecinaya gabaa loo wecinaya kooraan baa la kala qaadanaya walaalnima lagu kala qaadanaya buuq ma jiro adduunku soo dhaafay waqtigii la isboobayey cadayey amba la iswareerinayay واي شعب الرحمن وحنا إلى القيت كوبات سوق بجوينه أدور دور دقيقة سوق بجوينه خير الله كسيو حل أركتا أنت صومالي إثيوبيا سيا أنا وحن حل أركا صدق حرمه مدة كود وحوية إن هرتا إثيوبيا صوماليا يكون كربحان قانون عالمي وإن الدنيا تراهدو روحها صوماليا له وحنا إثيوبيا وإن قانون كدولي وشقية ويا
hadduu shaqaynaya imika markay qasda dhacdaan aan inuu qaanuunkii dawliga shaqaynaya laakiin adii la shaqaysiinay taas waa mid ugu weyn qaanuunka dawliga wuxuu leeyahay maxkamad dawliya wax kastuu leeyahay inaa waxaa dhan uu kala baxo arrinta labaad oonu arkay inaan maaragtay Ethiopia Soomaaliya xal u ah wax weeyaan waa arrin siyaasi ah mushkilaadku markay siyaasi yihiin si siyaasi ah loo xaliyaa mushkiladan maanta Soomaaliya Ethiopia ka tagan waa siyaasi weeyaan wixii horta dhulkii hore Ethiopia qaatay la soo baxay waxa la isku hayaa waa jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Ethiopia inaa si siyaasi ah loo xaliyo arrinta saddexaad ee arkayo in lagu xaliyo wax weeyaan in lagu xaliyo inay dawladu labada qaybba ay raali ka yihiin ay u kala qaadaan maxay dhahdaa dabka labada awoodoodba ay raali ka yihiin labada dawladba raali ka yihiin marka arrintaasi waa in la sameeyo aniga ma arkayo in dagaal lagu degdego marxaladan maxaa yeelay annaku ma noolin oo dagaal haddaan galno waan sii dhaadhacaynaa iyakuna ma noolo Ethiopia dagaal hadday galaan mandiqada waa boqol malyan bay yihiin annaga soomaaliduna 30 malyan baa ku dhow markaa soomaalidu isku degay marka waxaa dhici doona siraac fawdawiya dagaal fawdawiya dhici doona ummaddeena way soo noolaanaysaa soomaalidu oo dhaqaalay soo yeelanaysaa tacliintii bay gashay dowladnimada soo noolaanaysaa haddaan dib u noqono dagaal galno dhibaatooyin baa nagu dhacaysa marka maanta anigu dagaal uma yeedhayo soomaalidu inay galaan laakiin waxaan ku yeedhaa lagu dhameeyo afgarad iyo wada hadal waxaa la dhahdaa iminka soo maaragtid xamaas iyo israa'iil oo dagaalka isku hayaan uu yahay dagaal khadhaadh oo fool cuno madaxda lananayo haddana miiskii waa la wada fadhiyaa miiskii sheekada waa la wada fadhiyaa marka miiska in laga kicin Ethiopia laga kicin Soomaaliya laga kicin Somaliland oo ka mid ah Soomaalidana in miiska weeyna aan la xirin waxaa miisaskaas ay shaqeeyaan oo ay furnaato wada shaqaysiga wada xasoogu si aan u gaarno solution aan u gaarno ummadeena ayna ku noolaan karto horumar loo gaari karto insha Allah taala aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa ilaahay ku barakeeyo cimrigaaga iyo وين كنت